وأقرأ ما شاء الله هذا الصوت أسترت أنت اللي بربان يعني حماك لكم غبين ضدك طلع أنت الله يسارن كم من تجري بلا يسوق قلنا معناها ما بيجي تجنين بفوضى كلانية يو حمان جارا قبل أسوأ شيء وغبي وحاب على حال اللي صوها waxa soo wacay wiil magaaladan aan joogo soo wacay oo aan garanayo waayahay wiilka markuu soo wacay wuxuu dhahay brother CK iska waran hebel waaye seetay brother Juwiya alxamdulillah iska waran brother xaaladaada wadee wuxuu dhahay dad isku fiican aan nahay oo magaaladan degan nin aan qadariya tahay nin maaragtay dhaqankiisu wanaagsan yahay oo maaragtay ixtiraam u haayo waxa jirto gabar huddo la dhaho oo aan isku kaay garanayn oo laba walaal ay kala dhashay habeertay laxmiya dhashay de social media ayaadna labadiina ku jirtaan oo laba qof oo caana wada tihiin social media ayaa ku jirtaan labadiina laba qof oo caana wada tihiin Allahu musta'aan de qofka caana duu yahayna qofkii raba ka soo hadli kara marka waxaan u baahanahay maadaama magaalada kula deganahay dad is yaqaanana aan nahay aan kaaga dhawahay dadka social media ka daawanaya xaqna aan isku leenahay diris aan nahay in gabadha fiidiyodeeda aad bixisid oo aad igu qaadatid هذا الرجال waa meel loo dhaafo malaxasha lillah هذا الرجال waa ninka ragga waxa loo baahan yahay qoolka ragga inuu qaban karo xeerka ragga inuu qaban karo waa soo dhaweeyay waxaan yar baraada xasha lillah gardara gaar anigu gabadha walaashay uma gelin aan ahayn dadka reaction kan ka bixinay inay la mid tahay xasha lillah haddii noqoto video inaan saarana xabad sambuusa cunay la mid tahay hadda adoo ila hadlaaya aan videogeeda saari karaa dadka beelo soo qoraya kama xawaa وسعان أنا إن فيديو استرعادا كوب احترامها يعني خير ما العدكان لكن أنا مجيو نرجع عد كيسة إن السودة مجيو بيومية نرجع عد كيسة إن السودة مجيو يعني حركة رجعني ما أنا كوم جرتو استرجعني ما لحالي لحالي ويا هيبان إري فيديو دي جوانا كوجاري أنا أنترو أنا وأوجا موت سيف تيجي أمريكا سميسناي وأوجا نوع عن هنا النقطة raganimadii la igula hadlay waa qaatay fiidiyoyadii waa tiri ha ka cabsanaa shay codka ma daaray aniga waxaas laguma yaqaano baraada respect nin rag oo ila hadlay oo aan wada hadalnay oo aan si raganimada u wada hadalnay oo aan xeerka ragga uu i hordhigay aan ka qaatay lagama yaabo codkiisa inaan soo daayay waxaa dhacday fiidiyoyadii in aan eri waayahay waa tirayaa maalin fasaxay noo ahayd waxaan eri hadda waxaa lagu jiraa waddankaana joogo waa fire tag waa fasax gurigayga caawa markaan tago oo asxaabteyda aan la baashaalayo aan ka tago ayaa waxaan samayn doonaa inaan muuqaalkaas tiro waayahay habeenka guriga imaada muuqaalkii waa qabtay hal xabaa tira kii labaad anoo tiraya waxaan arkay community guideline youtuberada yaqaan daawanaya community guideline waxaa la dhahaa waa waxa ugu fudud kiis yar oo laga soo gudbiyay maadaama af Soomaali ku hadlayso English aadan ku hadlaynin ambila ka xareysanay 48 saac waxaan 3 days dhameed waa lagu soo celinaa waa waxa ugu fudud loo yaraa heestay intaan ka dhacay gabadhi walaashay oo dhees waxaan arkay soo fariisatay waaba leela hadlabe xalay asriganimo la hadlay waayaha eri muuqaalkii midaan tiray kii kale waa arkay ambila ka xareeyay markuu soo laabto isagana isaga tiraa isdhahay waxba gabadha la sii wadanin waa lagu hadlay taasan diyaar u ahaa saaki waxaan arkay gabadhii oo soo fariisatay oo iiga dhigtay wiilkii soo wacayna inuu ii hanjabay oo lii hanjabay oo muuqaaladii waa tiraa aan dhahay hal xabana ee bixisay midka kalena ay ku soo dabadari doonto booto waraaniya nin loo hanjabay maahe physically iyo mentally ba nin loo soo dhici karo in loo hanjabo maahe laakiin waxaan arkaanaa xeerka ragga nin gardaroodona maahe aniga midaan yeelin oo gabadhaas aan ka yeeli waayo qof kalena aan ka yeelin caana noqday yaa laga hadlin war ilaahay amarkiis yaa taali aniga caana noqday anaa iskeenaya babligan soo taabanaa carar qofka iga hadashaa who are you waa laga hadlaa raada lulle aniga laga hadlaa xasheekh maxamuud laga hadlaa farmaajo laga hadlaa waa lagu soo qaadanaa hadda caan tahay ma diidi kartid qof kasta oo diyaar u noqdo inuu caan noqdo taas macnaheedu waxay tahay walaal qaali waa laga hadlaya waa laga caan ka noqonay aan waxaan diyaar u ahaa tabliiq fanaan sheedaan daan qabiileyste kaliifkeeda gadato cid kasta
cid kasta inay iga hadasho anaa diyaar u noqday dee walaal qaali adna ila mid baa tahay hudda walaal reaction baa kaa bixiyey waxaan kuu sheegay wax la rabay inuu ninkaaga kuu sheego wallaahi oo bilaahi oo tallaahi adi hadda xaaladda waa walaaqoosaa kiiska iska waaloosaa qabiilaa rabtaa inaa u beddesho laakiin wallaahi kuwa kugu qabiilka ah haddii xitaa damiir ay leeyihiin siikay wuxuu kuu sheegay run waa unbay ku leeyihiin xaashaa lilaahi car waa kaasaaye waa kuma ninka maanta iska dhigi kara gabadhaa walaasheeya oo reactionka aan ka bixiyey keliya oo aan ku iri abbaayo waa lagu qabaa gabdhaha kale lama midtiid xoogaha is-ixtiraam keliya aan iri waa kuma ninka maanta ay dhihi karo ma dhihi kartid hal su'aalaa weydiinaa qabiilaa ku difaacaysaa maahano walaashaa adiga kula dhalatay ayadoo la qabo intana soo hor istaagto futada hoo hana dhahdo ma rabtaa ma rabtid waryaa stubirasbid ma rabtid no wallaahi ma rabtid see u rabtaa marka gabadhan aad dhehaysid waa igu qabiil aa ugu ogolaane easy ainfaq walaal waa run waxa lagu sheegay bis dheh waa isku dhammaatay anigaa noqotay dadka kama weyni haddii la dhowraa yo fiidiyogaas dad asxaab kula ahaan nahay walaalo ah xeerka ragga xaasha lillaah ani midin dhahay waa isla weynahay ani midin dhahay halkaasaan ka hadlayaa ani midin dhahay dadkan wax dheerahay anigu waxaan ahay nin wax loo sheegi karo waxna qaadan kara isla weyni aniga shaqo iskuma lehin laakiin hal mid waa midaan diidanahay anigu caanan ahay lagama hadli karo it's not possible haddii aad caan tahay walaal waa lagaa hadlayaa haddii aad caan tahay walaal qaali waa lagaa hadlayaa xumaanna maahan aniga haddii aan xumaan qabo ama si kale aan kuu eryanayo shalay commenti ma kaa soo bixi lahayn shalay fiidiyogaa soo dhigtay tiktokgaagaan imid commentia waxaa kugu soo qoray walaal maasha allah saan un baa rabay inaad garbasaar u soo qaadato fidno kale aawade male hore u soco aan kuu soo qoray xumaan uma socon waa iska kaftamayay marka walaal qaali noloshaada adaa iskale anigu ma xukumo micnaheeda ma ahan adaanku dabagelaa adaanku xukumaa no adaa noloshaada iskale freedom lifekaaga adaa leh saa doontidaa yeeli kartaa laakiin hal mid haddii aad walaal public isa soo dhigtid qof allaala qofkii doonaa kaa falceli kara middaa ogow bas ulajeedka intaas waaye haddaad public isa soo dhigtid walaal qaali qof allaala qofkii rabo ayaa adiga kaa falceli kara waayo adaa public isa soo dhigay adaa caan noqday caanaa noqonaa mana laga hadli karo walaal ma suurtagelaysa dee haddee noqoto soomaali dhexdeeda haddee noqoto ajnabi dhexdiisa muslim iyo gaalba qofka hadduu caan noqdo oo public yimaado wuxuu diyaar u noqonayaa in laga falceliyo anaa nafteeda tusaale kugu soo qaatay dadka waxba ma dheeri laakiin nafteeda waxaan tusaale kugu soo qaatay maadaama anigu caan ahay maanta u dambaysaa laga hadlayaa haddaa laga yaabaa in laga hadlooyo is normal waa caadi marka walaal qaali kiiskaa iska waalin fiidiyoga aad hadda maaragtay leedahay isheeg maxaa la yidhahdaaye dacwaan ka gudbiyey intaa ka dhacay waa community guideline strike walaal qaali 3 beri kadib wuu soo noqonaa welibana asxaan waxaan kuu sii sameynaa fiidiyogaas markaan soo celiyo diliidaan sii taabanaa waayo nin waxaan ahay lala hadlay xeerka ragga si raganimo leh ku yiri waayahay walaal waan tirayaa maadaama iri walaal waayahay waan tirayaa midna ani gacanteeda aan ku tiray midna community guideline-kaas aad keentay aanna kaa soo celinayo 48 saac kadib ama 3 beri asna waxaan kaa ballan qaadaa markaan kaa soo celiyo caddeynteeda xitaa instagramka inaan soo dhigo inuu fiidiyoga soo noqday laakiin isla markiiba aniga aan tiraayo waayo nin waxaan ahay qool iyo ballan qaaday nin yiri walaal qaali waa yahay nin walaalkaya tahay magaalada ila degan xaq baa ugu leedahay daris baan nahay fiidiyogaas waa kaa tirayaa xaasha lillaah waa tira mid kii labaadaa soo haray kii labaadna waxaan ku tusinayaa aniga inaan copyright waxba liga qaadan dhiraade community guideline waxba liga qaadine 48 saac kadib inaan soo celinayo markaan soo celiyana waan tirayaayo nin waxa ay xeerka ragga wax ka yaqaana dadaa waxay soo qorayaan cabsi haddaan kugu celinaya waxaan deganahay Salisbury waxaan ka deganahay Alban Strasse mentally iyo physically ba nin ugu soo dhacay inuu jiro ma aaminsani be ariya waxaad yeelay mentally iyo physically ba inuu nin ugu soo dhacay jiro ma aaminsaniyo saanigu caan ma noqdeen iskaadka iyo kibirka waayo haddaan kugu soo celinaa
adiga way aad caan u noqotay sababta adiga aad caan u noqotay noo sheeg haddaad rabin in laga hadlo adiga kuwa qabiilka ah iyo ummadda islaamka ahba waa dhex dhigaya sidee u rabtaa caana ahay mana laga hadli karo su'aal muhiim ah su'aal aad u muhiim ah macnaha fiiri gaalka dil gartiisana si sidee u rabtaa aniga caana ahay mana laga hadli karo de wax macquul wala noo sheeg wax macquul noo sheeg wala qaali ana nafteedu tusaale kugu soo qaatay waa laga hadlaa xabad kaliftee adduunyo waxaan joognaa dadkaas hallooyin waraa wax maydin sheegaa tabliiqaan noqonaynaa khalaas adduunyo waxaan joognaa naag kaliifkeeda ee gadanay ee hadle wallaahi oo bilaa tabliiqaan noqaa no way wallaahi no way game is over wallaahi game is over adiga naftirkaaga ay daawanaya haddaa rabtid inaad soo caanbaxdid aad wax xumaana ku soo caanbaxdid walaal macaan maxaa ku soo caanbaxay kuu haray wallaahi wax ma harin naag kaliifkeeda gadato aad dadka waxay rabtaa inay soo hor istaagtay hadasho ee walaal maxaa kuu dhiman marka oo xumaana ku soo caanbaxay adduunkii waa dhammaaday wallaahi adduun ma jiro baraada adduunku waa dhammaaday xumaan oo maaragta lagu soo caanbaxo oo harta maanta ma jirto yaa Somali modelka ku qoran tahay انت the next 3 videos aan ka sameeyay ku cadaab wallahi waxa idin sheeyaa marka walaalayaalow Allahu musta'an en hal mid aydan ku celiyo aniga reaction waa sii sameeyna I will just keep going reaction keegana wuu soconaa mar kale idin ku celinaa haddii ay dhacdo inaa iska soo waasho oo aniga reactionkaas aan kugu helo weliba ku sii sheeyaa haddii ay noqoto in reactionkaas aan kugu helo anigu ay taqaanin dulmiga ma jecli laakiin hadday noqoto adoo lagu qabo inaad kaliifka soo taagtaagto meelaha dee walaal qaali runtaa lagu sheegaa runtana ma diidi kartid mana dhihi kartid aniga caana ahay laakiin no one iga hadli kara ma leh dee walaal who are you waa kuu taalo xasan sheekh maxamuud iyo farmaajo laga hadlaya daase warka meeshaasu ku dhan yahay hadda iyo xaal anigu waxaan ahay nin xeerka ragga yaqaana maanta dhayna ku soo celceliyey looma baahna waa layla hadlay sida layla hadlay oo aan ku dhameeyey ayaan muhiim u ahayn in maaragtay gabar maaragtay aan sii wadwadna hadalkeeda oo video kale aan ka soo sameeyo oo aan xalay u qaatay ayaan still tii ku taaganahay diyaarna u ahay in hadduu ilaahay raalli ka noqdo xitaa videogaas markaan soo celiyo screenshot ka qaadaa waan soo celiyo oo dacwad ahaanteyda aan bilka ka xareeyo ugu soo noqdo inaan tiri doono hadduu ilaahay raalli ka noqdo sheekadana meeshaas ku xiran tahay waxa idin soo haray marka aan rabaa inaan idin sheego waxaa rabtiin qofkan yaa waaniyo waxaa rabtiin adduun waxaa rabtiin ay maanta waa idin jeedaa saa yeelaynahay adduun maanta waxaa rabtiin naag jirkeeda ka ganacsanayso kaliifkeeda rabta inay ku noolaato intay meel soo fariisato wax idin sheegayso adduunkaasa ku noolnahay guys that's it game is over wallahi meeshii u dambeysay baasha taagan tahay waraanu been idin sheegi maayo maanta hadday ka soo baxdo familkayga ilaahayow ha igu keenin alxamdulilah ilaahay wuxuu isiiyey famil aan ku faano sharaf leh karaamo leh gabdhana wada ciseeyo alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ninka ragga ah murqahaas waaweyn ee ku yaalla iyo codkan weyn raganimo kuma ahan wallaahi raganimo kuma ahan ninkay gabar la dhalatay ragga lama sinna aniga qofkaan muu naga taganiyo ninkay gabar la dhalatay ragga lama sinna alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahu adaa mahad iska leh waxaan xabadka saas ugu taagayo oo aan meel kasta aan tago madaxayga iyo sankayga saas kor u yahay alxamdulilah ilaahu rabbi raxmaan adaa isiiyey gabdhana sharfa ma qiimeeya midna loo qabay iyo mid kaleba alxamdulilah hadday xitaa ku jirto mid qabiilkayga ah
والله وبالله وطلع هدينا داحتا قبيل وصومال لماذا لقى صوته دين رب الكعبة انت أنتنا الواقع بصراحة سيدي هنديدا وحد إلى وكتوبة I will live for you my family please don't shake your eyes while you are wife please I will take left for the Magar family for you please I swear again والله وبالله وطلع Magar family وبحلا دين واتنك بحا وحولها ورقبنا كستومة أنا في حاجة قبلنا كستومة ودي أنا هنا باتي وجهنا ودفنوا سبعي يقول قرده صوتنا هذا نيكناس هل من قويدينا هذيك السؤال داية قبلنا كلنا دلتي هدي اللي جورسدو ما قربتها إن تيك توك إمادو إنترتينمنت أنا وسمعه بس وابا إنت أسبق تاس يجي جواب كلي إنت يجي جواب تاس جواب وافي على يسير intaas waa inta u baahanay waliba dadka waxaan ka sugayaa jawaabtaas dadka mindset-ka ah aniga jaahiliinta lama hadlayo qof jaahila oo la yiri luuqan gifti ka jiro ee asoo cad soo cararay anigu kama hadlayo laakiin waxaan la hadlayaa mindset dadka caafimaadka qaba waxaan ka hadlayo waa wax sax ah aniga gabar soo dhigta Snapchat story-geeda ama Instagram story-geeda intaan u tagay video kama soo xalin gabar aan rabin inay caan noqoto intaan u tagay aniga caan kama dhigin oo video-geeda intaan soo qaaday public ma keenin laakiin gabar iyada caan noqotay oo iyada isa soo dhigtay TikTok ayaa waxaan sameeyay dadka aan reaction ka bixinayay saan uga bixinayay oo kale inaan uga bixiyo taasoo ah wixii laga rabay inuu walaalkeed dhaho wixii laga rabay in adeerkeed inuu dhaho wixii laga rabay kan ku qabiilka inuu dhaho wixii laga rabay kan ku jinsiga ee Soomaaliga inuu dhaho ayuun baa waayo anigu ku jinsi baa Soomaali ah daasi waaba intaasba wax kale ma jiro intaasi hadda ku soo dhamaatay and 3 days kadibna dacwadaas ambeelka aan ka xareeyay clipka kale markuu soo noqdo fiidiyoogii waa lagu soo celinayaa meeshiisa markii saa loo soo celiyo screenshot aan ka qaadaa waa idin soo dhigaa isla markiina delete aan ka dhahaa taasi dib dambana Allahu musta'aan ishaq maxaa la yiraahdaa gabadha walaashii arunta u sheegay haday runta dhibsatay dib damba uma sii daba qaadanayo waayo labada video arunta uu sheegay kii koowaad arunta uu sheegay dar ilaahay iga ahayd oo reaction ka soo dhaxgashay kadib markii ay suwaashay boodboodi kii labaad waxaan ka waday bas wala jeedada kii labaad waxay ahayd abaayo caana tahay waa loo soo qaadan karaa easy macna caana tahay abaayo waa laga hadli karaa mar labaad waxa uu soo hadlay saas la ahayd mar saddexaadna kama hadlayo hasha lillaah nolosheedana iyada xor wax nolosheeda ayada xor wax qofku haysato male kaliya waxaan u sheegay un bas dameerka raganimo dameerka Soomaalinimo dameerka walaalnimo waxa uu ifarayo oo qof kastana ku soo dhacaysa aqligiisa taasoo ah walaal qaali waa loo qabaa is astur aabna ma aha أنا يوتيوبر أو شقدي قبصنا يا هدي عن شقدي رياكشن كود حشرو تاسوح عيب معها أباي ها حاشا لله عيب معها سماhan waxaa ku soo haray marka reaction ku sii socona dada waxay isoo qorayaan CK walaal haday qabiilka ahaan kuwa waxa jiro hawiyo sameynay I want to see where show me tonight caawan ka soo bilaaba waa raadiyeba show me naaga la qabo show me itus naaga la qabo itus oo qabiilkan aad sheegaysana anaa ku tusinayo ciyaarta bareejana ka soo dhig kan nara kuma yaalaadaan bareej ka soo dhigi waay walaanu nin qabiil ma ahniyo waxaasna shaqadeyda ma qabiil waxa iska soo hormariya naaga aan codkarka ahayn u fiirsaya ninka isog inaysan waxba ku dhex jirin qabiil oo iska soo hormariya ciwaanuna ka soo dhigtaa waa aboodaadii curadkii baan nahay karanle waa aboodaa inaan dhaho maalin kasta karanle kibri jabshe inaan dhaho maalin kasta soo dhigo balse lambar 1 horta ana wax isku dhigo
waxaan isku dhex ogahay aan iska dhex arkayo ayaa youtube-kayga ku joogayaa qof dhulka ka dhasha ma jiro nin kasta cid uu leeyahay laabtan kala socdaa I love them qof kastana qofkiisa waa jecel yahay balse markii ay noqoto social media faaiista thank you abay social media markay noqoto nin kasta wuxuu ku dhex jiro inuu la yimaadaa loo baahan yahay laakiin haddaa aragto qof qabiil iska soo hormarinaya wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxba kuma dhex jiraan wax ku dhex jiro haba yaraatay ma jirto waayo wuxuu rabaa in uu ku beer la xusado labada isaga ku qabiilka ah maalin ilaahay keeno ulajeedkiisa iyo fikirkiisa inay ku taageeraan nacima thank you abaayo ulajeedkiisa iyo fikirkiisa maalin kasta inay ku taageeraan bis intaasuu u baahan yahay anigu waan ka weynahay marka nin intaas sameeyo nin waxaan ahay markuu soo gelayay social media wuxuu isaga iska dhex arkay ku soo galay waqti dheer naftiisa siiyey reactionkaasaa bixinayana dee bili-aadana u ah way dhici kartaa inaan qalad galo mararka qaar laakiin arrintan haddii aan fiiriyo oo walaashay reactionkaa ka bixinayay wallaahi tayada markaan ka hadlo ataa gooniya ma ahayn dadkaa reactionka ka bixinaya ku dhex jirtay ana damiir baasaa igu jiro saxaawo damiir baasaa igu jiro adduunkan hormaray xitaa haddii aan imaado damiir baasaa igu jiro ah qoftu hadday marwo tahay dee walaal waa marwo qoftu hadday marwo tahay waa marwo macnaha saasaan u aqaana aniga qofka hadday marwo tahay waa marwo marwo waxa loo dhahayna xishood badan aa ku dhex duugan keliya marka waxay iga ahayd waani oo walaashaa ataa gooni ana ma jirin daase intaa waa intaa of course aan akhriyo marka kuwantiyada waa yahay waxaa idiin soo haray marka dadka qabyaaladda ee waashe ee kabaa la kabiixaaya ee saas dhahaaya digdam sikay haddaa rabtid inaad wax ka sheegtid you have to be a man nin inaad noqotid waa nin ragaa tahay qooro nin leeyaha ka sheekaysa bro in cuno maartaade aniga ragga ma cuno brother waayo nin rag futadiisa iyo qoorihiisa hadduu nin sheego that means that guy futadaa cuncunaya ana ma sameeyo laakiin I don't do I'm sorry I'm a man dumarkaa la hasaawa mid kale haddii ay noqoto dhanka dumarka abaayo baasuukiyga haddaa ka hadlaysid that's easy ruuxan wallahi waxaan iyagoo kalea noqonaynaa haddaa ka hadalno waxaan qasinaa noqonaynaa wallahi iyagoo kalea noqonaynaa haddaa ka hadalno isna get the fuck out of here bro waxaan qasin waaye dhegeyso qof dumar aad tahay baasuukiga ku mashquusha tusaale ninka ragga ah markii uu guursado gabadha markaa uu guursado inta ay la joogto ee xaaskiisa tahay siday u dhaqanto waa waxay isaga ka aragtay lejinkan waa soo guursadaa buu soo waxaa garatay maaha lejinkan waa soo guursaday dadkuna waa wada ogaayeen ya marka waxaan kuu sheegaa haddii la dhahaayo qof aan geem ciyaari karin labada waa kan qoftiisa ay loxloxdo meelaha boodboodo kaasaa u baahan in la dhaho waa daalantahay waxay garateena u malayna marka nin rag baasuukiisa ka hadlaya jawaab uma hayi kaas waxaa waaye another level waaye xabad ka dhihi maayo markii ay noqotana qof dumar ah oo xishoonayn oo nin rag xubintiisa taranka ka hadlayso iyadana another level waaye wax kale oo aan ka dhihi karo male wax kale oo aan ka dhihi karo meesha iyadaa male naagtii nin rag tiraadana waa kaniisa tahay inta ka dhacday iyo is easy come let's play together haddaad jecel ii sheegi weyso anaa qaladka iskale
sheekada waa dhamaatay marka allahu mustacaan waxaan rabaa in aawe yaa wax isku haya waa isku soo dhisaa laakiin kuwa haddaan la hadlo waa farxayaan hadda ka hor mid soo wacay hadda ka hor mid saaxiibkii mid soo wacay kuwaan caanka magaciisa wuxuu ahay magacyadooda ma kala aqaan magta culuco iyo tufo iyo foodo iyo ma kala aqaan miduu soo wacay waa asxaabteeda anaa kaag hadlay oo masiikeeda ilaahay baa kugu dhaarshay igu dhiib beer ma u soo baxdaa leedahay beer haddii aan inta soo saari lahaa canaanan lahayna waa dabaaldegayaan siikeeya life la koray war ma kula hadhin askar niikana shacabkii aan soo qabanaa kaale meesha dadka laga soo qabanaya qof usoo qabanaya waa la buuxaabay oh my days man aniga dadkaa soo qabanaya qof macaynanaya caab waaya ma raba inaan sameyno sida laafyada kale oo qof haddii aan soo qabanno qof aan toos u ataagareyno ama acayno waxa anaga waa iskala weynahay we have big platform that's it wixii aan sheegay iyo wixii idinka qarsoonaa anaa sheegay way dhammaatay so just we need to jail inaan jilgareyno inaan hore u socono you know waxa waaye dad fara badan waxay raadinayaan dhiiqo ila raadinayo darbiyada isku soo xoqayo but they are not my level dhibka jira wuxuu yahay qofka aan levelkayga ahayn aan chance ma siiyo they are not my level so I can't ma jawaabi kari jawaab ma sii kari magacaan waqtiga soo geliyay nin funaanada uu qabaan iska bedelaynin oo ma qubaysta qaarkood hoos waa ka qaawan yihiin funaanadii wataan life ay fadhiyaan so these people they are not my level yaa qey faizo waqti kuma lumin kari marka waxaa samaysaan haddaan qof soo qabto attack gooni ha sameynina ha caytamina is normal macnaha hadhow annaga ceeb nagu noqonaya ma ahan inaan qof cayno ma ahan inaan attack gareyno just easy yaa soo qabtaa marka habartaaninkii qabo oo asagana ku dhali habartaaninkii qabo oo asagana ku dhali haddii aad qabiil ugu doodaysid iyada intaad u tagto aad barya lahayd waxaad dhihi lahayd abbaayo sharaftaadii aan nahay karaamadaani aan nahay please laakiinse waa u doodaa oo xumaanaan ku garab istaagaa been ha sheegin adiga gabadha kula dhalatay uma rabtid xumaan war aniga waa hadlaaniyo noola iga af soomaali badan inuu inta ku jiro ma aaminsanay ciyaalkan la yiri qabiilaa la difaaca aan gift lagu helaa ee ayagoo wada qaanjeer miirana aan dharka iska bedelay inta soo galay nothing waxaan kuu sheegaa adiga waxaa ku jecel qofka wanaagga kuu sheegay ani wadaad mihi I'm not wadaad ani sheekh mustafa wiilkiisa mihi wadaad mihi ciyaalka xaafadda ah balse runta kama gabanayo waa kuu sheegaa hadday gabar kula dhalatay awra kula dhalatay